meherka sirta ah maxaa sirba kugu wataba meherka looguma talagelin inuu sir noqdaba gojaxa geel wax la qariyo ka weyn bay dhahaan Soomaali jeeni geel miyaa la qarin karaa hadduu imika ninku yidhaahdo jeeni geel baan halkaa gashanaya ama lug geel dabeetana waan soconaya ma kaa socon mayso fashilanta xagga dambe ma ka muuqanaysa reer dhan baan qarinaya inan dhan oo aabba iyo hooyo iyo ehel soo korsaday oo halkaa aad ku jeclaanaysa iyo miisaanka la soo gaarsiiyay baan qarinaya waar waxaanu diidnay xoolaha in la xadaa la diiday dee dadka xadiistooduna ka daran balka waran haddii imika uu qof alaab yar kaa xado waad qaylinaysa ka qof dhan kaa xaday ka waran qof dhan kaa xaday inan dhanoo lagu soo tabco la soo kariyo heblaayo hebeloo loo hanwen yahay buu xaday oo uu xamaalay maya socon mayso inantu way tarmaysaa safaarad dhan weeye guurkeedu waa inuu official noqdaa si sharci ah oo caan ah aclinu nikaax buu nabigu leeyahay guurka muujiya marka geesinimo baa dhalinyaro la idinka rabaa haddaa geesinimo muujisaan sodohda iyo sodoga waa idinka adkaan haddaa fulaynimadaa ku jirtaanna guurku wuu idinku adkaana dabci maayo waxaa la doonayaa intoo soo heshiisaan idinkoo isafkarto arrinkiinii meel ku tiiriyey u soo badheedha inanta aabbaheed iyo hooyadeed dabeetana inana waxaad leedahay aabbo iyo hooyo inantii baanu doonaynaa heblaayo hebel ayaan doonayaa inaan guursado waxna ma hayo dee waa ikan mid intaa yidhahda ma laydinka helaya waaya waxaa la yidhi geesi ilaahay ma xilo baa li geesi ilaahay ma xilo waanu hubaa wadcigan aynu joogno qofka geesinimadaa la yimaada geesinimadiisaasaaba lagu xoolaynayaaba war ninkani waa nin fariida ma ninka inoo soo badheedhay ee in raggaa ka soo baxay ee ina hor yimida inanteenniina weydiistay annagaa kaa bixinay waxoo dhan baa la odhanaya khalaas meherna yarad laguguma le gabaati lagaama doonayo alaab lagaama doonayo imikaanu kuu meherinaynaa waayo imika waa la soo dhaafay waqtigii hablaha yarad loo xidhi jiray xoolo laga dooni jiray nin asturan oo mas-uuliyadda inanta qaadun baa la doonaya marka waalidkii waa inagii dardaarankii xalayta siinay in hablaha iyo wiilasha guurka loo fududeeyo laakiin wiilasha iyo gabdhuhuna dhiiranaan ha la yimaadaan oo ha ka badheedhaan arrintaas annaguna haddaanu waalidka nahay waanu garab geli doonaayoo markaan u yarnay discount baan u samayn doonaa kharashkiisa waaya